dab xoogan ayaa habeennimadii xalay qabsaday hotel ku yaala bartamaha suuqa magaalada Burco kaasoo khasaare gaarsiiyay meherado tiro badan oo isugu jira bacadlayaal iyo dukaamo kuwaasi oo ka agdhawaa hotelkaasi. dabkan ayaa ka dhashay kadib markii uu shoor ka kacay hotel ku yaala bartamaha suuqa magaalada Burco waxaana goor dambe uu soo gaadhay dabdamiska dawladda hoose magaalada Burco iyagoo gabi ahaanba agabkii yaalay meheradahaasi ganacsiga ay shuf beeleen isla mar ahaantaana aan hal shalfad laga saarin meheradahaasi. xilli aanu gaadhnay goobahaasi gubta ayaa waxaan halkaasi kula kulanay qaar ka mid ah hantiilayaashii meheradahaasi. geesta kalena gudida nabadgelyada gobolkani Togdheer oo horkacaya gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diriye duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad taliyaha qaybta booliiska gobolkani Togdheer Cabdi Muuse Cabdilaahi abaanduulaha qaybta 12aad ee gobolkani Togdheer ayaa maanta shir jaraa'id ay si wada jir ugu qabteen xarunta gobolka Togdheer waxa ay daaha ka qaadeen howlgalo ay habeennimadii xalay ee magaalada Burco ka fuliyay ciidamada bilayska gobolka Togdheer iyagoona baaq u diray dhammaan waalidiinta gobolka Togdheer inay ubadkooda ilaashadaan isla mar ahaantaana waxa ay carabka ku dhufteen mas'uuliyiintanu dhalinyaro ay sheegeen inay falal amaan darro ka wada gobolkani Togdheer waa siday hadalka u dhigeen ayagoo arrimahaas iyo arrimo kale oo tiro badan ka hadlaya mas'uuliyiintanu waxa hadaladoodii ka mid ahaa jiska iyo waxa ka dambeeyay iyo intii aan qabanay markay ila sideed ku dhacay intii kale oo wadada kala saarayna dib baan u bilaabi doonaa hawlgalkii waxaan sheegayaa waalidiinta أنا أقول كوه هكذا كسوقي كورهيا. هالدور كجوكول. أنا أقول حريف النار كذا عقد عنك أنا أقول أسوق في الدنبيت وجرا بقطعي. أنا سوق وينو صعب. أقبل ما ينسيل الدين إنه يرد الدنبيلا الدم اللي هو هي مساجد بوك صباح. الله الكريم. هقول كنا بنستعجل ما هي لا أنت عن كتب كيرينو ووالينا. دليل أنت بلنس يحواه. dhalinyaradaasi meelaha midmadow habeenkii seesaska fadhida inta dukaan ka soo adeeganaysa ama gurigeedii ku socota ama iskuul ka timay soo hormartay iyo qofka yar soo hormaray amaanka ma helo talaabo waa laga qaaday talaabadaas waa la xidhay barkood qaarna waa la xukumayba kuwa moobilada dad kala carra qaar ka mid waa la xukumay qaar kalena waa la xukumi doonaa dhalinyarada waxaan iyagu soo jeedinaa hal qodob oo ah gurigiina iyo meesha wax ka baranaysaan iyo wax weyn ka dhaxay waalidiintana waxaan leenahay war caruurtiina ka warhaya oo marka habeenkii la soo qabto 10 inoo seexan waay ayaa subaxii waxa ka saldhigyada way ka buuxaan waalidiintii way leeyihiin madeedii baa soo qabtay inamadina intaan la soo qaban bilayska aan soo qabanay bilayska iyo military waana waxay ku haystaan inay socdaan oo ay magaalada dhammaanteed barroondeeyaan oo gidaarada seesaska fadhiista oo dadka meesha maraya ama hablaha maraya maatay aflagaadiya kuwa waxaan ku qaadnay talaabaan ku qaadnay in badan waan ku xidhnay inta kalena waxaan ugu digaynaa inay waalidku caruurtooda ay la socdaan halka ay marayaan nin waliba marka la soo qabto wuxuu ilaahay wuxuu ku jiray masaajid wuxuu ku jiray madrasad buu ka soo baxay ninaan buu ku qabanayna ma jiro soo buug sitaan qabanayna ma jiraan iminka waxaan ugu digaynaa dadka dadweynaha reer Burco si wanaagsan bay bilayska uga shaqeynayaan ama amniga gobolka iyo degmada uga shaqeynayaan laakiin waxaan u sheegaynaa inay caruurtooda inamadooda waliba inamadooda ay la socdaan habeenkii nabadgelyadu cid walba waa u dan qof kasta wuxuu ku seexanayaa uu ku dhaqmayaa ku nool yahay oo barwaaqo aadan Maxamed shabakada caalamiga oo Odweyne News magaalada Burco.